السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين عاشكين وإلهي ما هدي أنا نود قبلنا إيدينكو نود قبل مرلبات يمسد حاد بسكسور لابني أصحابي هدي أدنو عصبتهاي channelka subscribe-ta كبريتا لايك شيرت حقيقي هدي أد هرنو لتوقتينا أد بانكو سلامة ينكو سودوينيا يا my family aad baan ku salaamayaa waan ku soo dhaweynayaa big love baan ku siinayaa asxaabey maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo jacaylka berisamaadka iyo jacaylka maanta maxaa farqiga u dhexeeya jacaylka berisamaadki waa qabti intaysa dhicin ka hor iyo jacaylkii cusbaa farqiga u dhexeeya waan rabaa inaan idin kala sheego jacaylka berisamaadka asxaabey ninkii yaqaanee gabadha marka la rabo amba wiil gabar uu damco uu jeclaado waxaa dhib ku ahaan jirta sida uu ugu sheegi lahaa gabaray waa ku jeclahay siduu ku dhihi lahaa baa waxay ku qaadan jirtay bilooyin bay ku qaadan jirtay inuu u sheego oo iyaduna uga aqbasho marka waxaan rabaa inaan xoogaaga bal ka faalloodo farqiga u dhexeeya kan maanta iyo kii berigaas jacaylka maanta ah sida aad og tihiin idinkuba ood la socotaan waxaa laisku jeclaanayaa hal beri maalin gudaheed waa ku jeclahay anaa kaa daran kaas jacayl miya idin weydiiye bal su-aal idin weydiiye jacaylkaas degdega ah bal iishee bal ifahansiiye bal asxaabey dhalinyaro bal hala ifahansiiye jacaylkaas degdegta ah haddaa la is arkay haddaa la is jeclaaday haddaa la is gursaday haddana waa la is furay degdeg dhibkaasoo keenaa jacaylkii berisamaadki markaan ku laabto gadaal jacaylka berisamaadki waxaa jirtay gabadha markii uu wiil jeclaanayo kasoo qaad tusaale ahaan gabadha iyo wiilka horta waxaa laga yaabaa waxay u badnaan jirtay inta badan inay isku meel kasoo koraan ama iskuul isla dhigtaan ama wax oo maxay ahayto noocaasi horta u badnaan jireen ay dhacdo in gabadha wiilka uu ka helo uu jeclaado wuxuu soo mari jiray kor halkaas kor kasoo wareegi jiray halkaasuu soo wareegayaa wuxuu leeyahay gabadhaasaan rabaaye see kula hadlaa yay isku fiican yihiin yaa la hadla yay saaxiib yihiin gabadhee u dhow warniyaho yaa waxaasuu dhihi jira horta asxaabey marka jacaylka marka berisamaadki waxaan kaloo oon rabaa inaan ku xuso halkan gabadha sida wiilka ugu sheegto weeyaasha jidadka uu ugu sheegin karay baan rabaa inaan idiin sheego waxaa laga yaabaa iskuulka waa laiswada jeedaa saas fiirinaya lama hadli karo gabadha wiilku ka baqaya okay gabadha gurigooda joogtaa xaggee jaaniska ugu dhow oo gabadhaas kula hadli karo waa marka gabadha makiinada cajiinka looga diro ninka yaqaani cajiinka markii la yidhaha ord soo qaad cajiinka doon iyo ord caana iisoo qaba wax yaro suuqa looga dirta iyo halkaasuu ku dul wareegayaa guriga gabadha ku dul wareegaa wiilka oo wuxuu leeyahay jaanis taloseen ku helaa goormay cajiinka doontaa goorma caanaha loo diraa heblaayo ya anaa arkay iyadoo xagga maqribadii meelahaas cajiinka doontaa halkaasuu ka gaadaa waxaa dhacda 5 habeen 6 habeen inuu gaado soo meelaha taagtaaga ay gabadha xuf ku agmarto oo isla hadlin baa dhici karta waxba jawaaba aysan siinin waxaa dhici karta bil inuu waddadaas ku wareegayo oo taagan yahay wax maxay ahayto haa iyo maya usa arkin waxaa dhici karta bil amba 2 ama 3 markay kasoo wareegto inay tiraahdo darbigeenna caawa isugu kaayakeen halkaas isku sheekaysanayna isku wareysanaynayo oo aan dad ku arkin oo cid ku jeedin haa baa dhici karta haddana xaalku meesha marayo waa sidee halkuu marayaa telefoon la isu diro halo may maqlaysaa haa waa ku maqlaa haye haddii arrin dhex marto say aragtaa gabaray waa kaa helay haadi ma iga heshay aniga xitaa haa halkaasay maraahda hawshina ma iga heshay waa kaa helay haa dhac qambalaf jag dhag guur degdeg ah jacayl degdeg ah aniga wiilka waa isjecelnahay حاجة اسكت جعليين ما بيقانان وحي اسكو يين ما بيقانان واستعلنا ها أنا ويل خلاص جعلاني واسكو سنينا ما عندي مرة بتاويل كانوا واردك مركا هذا ما
waa jacaylkay waa qalbigay waa naftayda anaa qaatay ya hadal laga bixinin waalidku maxay ku hadli karaan marka waxba kuma hadli karaan gabadhoodii aa ninka keentay dii laga soo doonto alxamdulilah waa la siinayaa laakiin la isma baranin oo time la isma siinin oo wiilkan iyo gabadhan maba is yaqaanaanba waa ku jecel inaa kaa daray hawsha maraysaa bes wax intaa dhaafsiisan ma jiraan dhac waalidku waa waalid ilaaha barkeey waxba kasoo qaadi maayaan ma jeclaateen haa waa suukiin faataxaynaynaa waa la isku diray dhac arooskii kasoo ka dhacay waa la isgursada guri baa la isugu tegay maba la is yaqaanaba la ismaba baraninba timeba la isma siininba degdeg soomaali wax ku mahmaadaa geedkii orod lagu koro orodaa looga soo degaa marka waxa yani waxaan ku leeyahay aan ma aragtay aan arrintaas ka leeyahay yaa arrin fiican ma ahan jacaylka waqti hala siiyo ku arkay ku caashaqay hala iska daayo hala iska hubiyo gabadha wiilka ay rabto oy guursanaysa ha iska hubiso ha barato ha ogaato ha waraysato dad yaqaan ha raadiso bulshada dhalinyarada siduu ku yahay ha ogaato waalidkiisa siduu ku yahay ha ogaato wiilkana sidoo kale ha iska hubiyo gabadha uu rabo inuu guursado ha soo waraysto waa inuu sameeyaa baaritaan fara badan gabadhaan see tahay ma gabar af dheerba ma gabar maxayd af gaabanba ma gabar waalidkeeda xushmaysaa ma gabar la keliyahaa ma gabar saana waa inuu kulli wixii gabar laga fiirin jiray uu kasoo fiiriyaa gabadha ayadana sidoo kale wiilkaa ma dib jirba ma wiil fiicanba ma wiil waalidkiisa u fiicana ma wiil maxay ahayd oo dhaqanayo reerkiisa iyo xaas iyo reer lagu aamini karaa ha isku hubis ayadana haddaan la iska hubin la isku soo booday haddana waa la kala booday haye halkaas maxaa ka dhacay burbur iyo khasaaro iyo lagooyo iyo gabadhi oo maxay ahayd oo sida hore aan ahayn oo ilmo dhashay oo ilmihii lagu furay lagooyo qoorta loo geliyey familkeeda culays loo soo saa'idiyey kale haye asagin waxa waaye macsalaama jerigaa furan iska ka dhaqaajiyey marka asxaabey barnaamijkeena maanta waxaan kusoo gabagabeynayaa jacaylka hadda jira iyo kii hore farqiga u dhexeeyay bal ila soo fiiriya fikirka aad qabtaanna iisoo sheega barnaamijkeena maanta intaasaan kaga gudbayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad haddaad ku cusub tahay janalka subscribe iyo sharet waa xaggaaga anigana wixii tala soo jeedin ah iyo waano iyo warcelin ah aniga laygu yimaado waxaad qabtaan oo hadal ah kumanka igu dhaafa haddii arrin aad maxay ahayd tumaaro ulweyseen ay jirto oo tala bixin ah waa ila soo wadaagi kartaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu